I went waxaan tegay to the office xafiiska at about qiyaastii 2 p.m. labada duhurnimo. I think you are about the same age as my father. Waxaan u malaynayaa aabahay inaad qiyaas ahaan isku da' tihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Welcome back. Haddii aad horey noola sii joogtay soo dhawow mar kale. Haddii aad nagu cusub tahay welcome and please don't forget to like, subscribe and share. Ha iloobin in aad taabato like iyo subscribe iyo weliba in aad share dhahdo oo aad la wadaagto asxaabtaada iyo dadka kale ee u baahan ee ka faa'iidaysan kara. Cashirka caawa waa qayb kale oo ka mid ah prepositions meelayaasha. Caawa waxaanu baran doonaa erayada kala ah since, about iyo with. Prepositionada aad iyo aad ayay muhiim u yihiin. Waa erayo yaryar oo gaagaaban laakiin macno u yeelaya jumlada marka aad ku hadlayso. Macno badan ayay u yeelayaan waxayna si khaldan haddaad u isticmaasho waxaa bedelmi kara macnihii iyo ujeedadii. Marka aad iyo aad ayay muhiim u tahay erayada meelayaasha ama prepositionska sida loo isticmaalo inaad si fiican u barato marka aad doonayso luqad inaad barato. Ereyga since macnihiisa waxa weeye laga soo bilaabo. Laba macno uu leeyahay. Laga soo bilaabana wuu noqdaa maadaamana wuu noqdaa. Marka since waxaa loo isticmaalaa since is used to indicate si loo tuso ama loo muujiyo a starting point meel ay wax ka soo bilowdaan in time waqti ahaan in the past oo la soo dhaafay until the present time ilaa laga soo gaaro waqtiga hadda la taagan yahay. Marka laga soo bilaabo marka waqti la soo dhaafay aad ka hadlayso ilaa xilligaas waxaad isticmaalaysaa since. Tusaale ahaan we have been waiting for you since yesterday. Waxaanu ku sugaynay ilaa iyo shalayto. Ilaa shalay laga soo bilaabo ayaanu ku sugaynay. We have been waiting waxaanu sugaynay for you adiga since laga soo bilaabo yesterday shalay. He did not sleep since last night. Ma uusan seexanin ilaa iyo xalay. Ilaa iyo xalay laga soo bilaabo ma uusan seexanin. Marka taas macnaheedu waxaa weeye waqtigaas laga soo bilaabo ilaa iyo hadda waxii socday ayay sheegaysaa. He isaga did not sleep ma uusan seexanin since laga soo bilaabo last night xalayto. It has been raining since yesterday. Roobka waxa uu da'ayay ilaa iyo shalayto. It has been raining since yesterday. Sidoo kale since macnaheeda wuxuu noqon karaa maadaama laakiin tani waa informal ama rasmi ahaan inta badan lama isticmaalo laakiin waa la isticmaali karaa dadka qaarna way isticmaalaan. Marka since you are from here maadaama aad halkan degan tahay ama halkan aad ka timid can you show me around ma isoo wareejin kartaa oo ma isoo tutusi kartaa. Meel markaad ku cusub tahay qofka sii joogeed u timid waxaad ku dhihi kartaa since you are from here can you show me around. Maadaama aad halkan ka timid ama degan tahay ma isoo wareejin kartaa ma isoo tusi kartaa meelaha. Since you have nothing to do maadaama aadan waxba qabanaynin can you drop me off at work. Shaqada ma igu tuuri kartaa. Shaqada ma igeyn kartaa. Waxaa laga yaabaa inaadan ama gaari haysanin ama gaariga uu ka hadlaysan yahay oo qof gaari le aad ka codsanayso inuu shaqada ku geeyo. Marka waxaad dhihi kartaa since you have nothing to do can you drop me off at work. Maadaama aadan waxba qabanaynin shaqada ma igu tuuri kartaa. Since you are a mechanic can you try if you can fix this. Maadaama aad tahay mechanic ma isku dayi kartaa in aad kani hagaajin karto. Since you are a mechanic maadaama aad mechanic tahay ama farsamo yaqaan can you try ma isku dayi kartaa if you can fix this in aad kani hagaajin karto. Ereyga about siyaabo kala duwan ayaa loo isticmaali karaa. Ereygan macnihiisa waxa weeye ku saabsan.
Layla told me about your concerns. Layla ayaa ii sheegtay wax ku saabsan walaaca aad qabto ama waxyaabaha aad ka walaacsan tahay. Layla told me waxay ii sheegtay about wax ku saabsan your concerns walaacaada ama waxyaabaha aad ka walaacsan tahay. Ereygan concern wuxuu noqon karaa walaac, sidoo kale macno ahaan wuxuu noqon karaa khuseeya ama marka aad qof ku dhihi rabto taas adiga kuma khusayso waxaad dhihi kartaa that does not concern you, taasi kuma khusayso. laakiin hadda jumladan sida loo isticmaalayo waa walaac. I know about your problems. Waan ogahay wax ku saabsan dhibaatooyinkaada. Dhibaatooyinka aad qabto waan ka warqabaa. Qofka marka aad ku dhihi rabto waxaad dhihi kartaa I know, waan ogahay about wax ku saabsan your problems, dhibaatooyinkaada. Can you tell me, ma ii sheegi kartaa the story, sheekada about ku saabsan the car, gaariga? Can you tell me the story about the car? I like to hear jokes about the politicians. Waxa aan jeclahay in aan maqlo kaftanada iyo waxyaabaha shactirada leh ee lagu qoslo ee ku saabsan siyaasiyiinta. I like, waan jeclahay, to hear in aan dhegaysto ama aan maqlo jokes shactirada ama kaftanka about ku saabsan the politicians, siyaasiyiinta. You can use about when you are guessing. Sidoo kale about waxaad isticmaali kartaa marka aadan hubin waxa aad sheegayso oo aad malaynayso. When you are not sure about what you are talking about, you can use about. Khaasatan if you are talking about a number or amount or date or time, waxyaabahaas oo dhan aadan hubin qiyaas marka aad qiyaasayso about ayaad isticmaali kartaa. Tusaale ahaan, I have been there about 3 months ago. Halkaas waxaan joogay qiyaastii 3 bilood ka hor. I have been there about 3 months ago. Tani waxay caddaynaysaa in aadan hubin 3 bilood inay ahayd laakiin aad qiyaasayso. I have been there about 3 months ago. There were about 100 people at the meeting. Qiyaastii kulanka waxaa joogay 100 qof. Dadkii tiradoodii ma aadan tirinin laakiin waad qiyaasaysaa. There were about 100 people at the meeting. Kulanka waxaa joogay qiyaastii 100 qof. I went to the office at about 2 p.m. Xafiiska waxaan tegay qiyaastii 2 duhurnimo. I went, waxaan tegay to the office, xafiiska at about qiyaastii 2 p.m. 2 duhurnimo. I think, waxaan u malaynayaa you are about the same age, qiyaastii in aad la da' tahay as my father, sida da'da aabahay oo kale. I think you are about the same age as my father. Waxaan u malaynayaa aabahay inaad qiyaas ahaan isku da' tihiin. You can also use about to talk about intent. You can wada use inaad isticmaasho about, ereyga about, to talk si aad uga hadasho about wax ku saabsan intent, waxa aad doonaysa inaad samayso. Intent wuxuu ka yimid intention ama niyad. Marka waxa aad niyadda ku haysaa inaad samayso marka aad ka hadlayso ama aad doonayso inaad samayso, about ayaad isticmaali kartaa. About plus to. About iyo to ayaa israacaya oo aad isku daraysaa marka aad ka hadlayso intent ama waxa aad niyadda ku haysa inaad samayso. I was about to call you when you walked in. Waxaan doonayay inaan ku soo waco markii aad kadinka ama albaabka ka soo gashay. I was about to call you. Waxa aan doonayay inaan ku soo waco ama waxaan rabay inaan ku soo waco when you walked in, markii aad
irida ka soo gashay. Marka tan waxay muujinaysaa in aad niyadda ku haysay in aad wacdo oo aad isku dayeysay ficil ahaan markii qofkii uu soo galay. I was about to shut the window. Waxa aan doonayay in aan dariishada xidho when the storm hit. Marka dabayshii roobka wadatay ama hufadii ay soo gashay. I was about to shut the window. Waxa aan doonayay in aan dariishada xidho when the storm hit. Waxaa jira eraryo inta badan ama sida caadiga ah about lala isticmaalo oo ay israacaan. Erayadaasi waxaa ka mid ah worry about, walwal. Don't worry about him. Ha ka walwalin wax isaga ku saabsan. He will be fine. Wuu fiicnaan doonaa. Don't worry about him. Isaga ha ka walwalin. He will be fine. Marka eraygan worry way inta badan about way israacaan waana lala adeegsadaa. Haddii aad qof doonayso in aad weydiiso waxa uu ka walwalayo waxaad ku dhihi kartaa what are you worrying about? What are you worrying about? Complain about. Eraygan complain waa cabasho ama ka dacwoon. Inta badan isagana about wuu raacaa. Complain about. Marka waxaad dhihi kartaa don't complain about your neighbor. Deriskaada ha ka dacwoonin ama ha ka cabanin. Ama waxaad dhihi kartaa complain about your neighbor. Deriskaada ka cabo ama ka dacwo. Marka complain about labadan eray way israacaan inta badan. Dream about, ku riyoon. Dream waa riyo. Marka I dreamed about my father last night. Xalay waxaan ku riyooday wax ku saabsan aabbahay. I dreamed about my father last night. Eray kale oo isagana inta badan ay israacaan waxa weeye argue. Argue waa muran. Argue about. They argue about money all the time. Mar kasta, waqti kasta, lacag ayay ku murmaan. They argue about money all the time. They iyaga argue waxay ku murmaan ama ay ka murmaan about wax ku saabsan money lacag all the time waqti kasta. Excited about. Eraygan excited waxa weeye farxad oo markaasi dheeraad ah marka aad wax xiisaynayso oo aad hiyakacsan tahay markaas ayaa la isticmaalaa. Marka the children were excited about their new school. Carruurta waxa ay aad ula faraxsanaayeen oo ay u hiyakacsanaayeen iskuulkooda cusub. The children were excited about their new school. Wax ku saabsan iskuulkooda cusub ayay aad ula faraxsanaayeen. With. Eraygan isagana with waa preposition. Wuxuuna ka hadlaa marka aad qof ama shay ay wada jir ahaan oo kale ama together. Erayga macna ahaan u soo dhow eraygan waa wada jir ama together. Marka tusaale ahaan I was with Ali when the guests arrived. Waxa aan la joogay Ali marka ay martidii yimaadeen. Marka tan waxay muujinaysaa in aad isku meel adiga iyo Ali aad joogteen. Marka with waa la jiran ama together. I was with Ali when the guests arrived. She came to the wedding with her mother. Arooska markii ay timid hooyadeed ayay isla socdeen. She came way timid to the wedding arooska with her mother iyadoo hooyadeed la socota. Marka with waxay muujinaysaa iyadii hooyadeed in ay isla socdeen. She spends her free time with her family. She iyada spends waxa ay la qaadataa her free time waqtigeeda ay firaaqada tahay with her family qoyskeeda la jirankooda. Eraygan spend waxa weeye kharash garayn ama lacagta marka aad wax ku iibinayso ama aad ku gadanayso waa la isticmaalaa spend. Sidoo kale waqtiga marka aad wixii aad waqtigaada ku kharash garaysana waa loo isticmaali karaa. Marka
she spends her free time waqtiga ay firaaqada leedahay waxay ku kharash garaysaa ama ay la qaadataa bay noqonaysaa with her family qoyskeeda. I worked with him for 2 years. Waxa aan isaga la shaqaynayay 2 sannadood. I worked waan la shaqeeyay with him isaga la jirankiisa for 2 years 2 sannadood. I agree with you waan kugu raacsanahay waan kula ogolahay. It is a difficult situation. Waa xaalad adag. I agree with you. It is a difficult situation. You should discuss this issue with your parents. You should waxa kuu fiican discuss in aad kala tashato ama aad kala hadasho this issue arrintani ama dhibaatadani with your parents waalidkaada. marka shay la adeegsanayo ama shay aad rabto inaad adeegsatana with waa la isticmaali karaa marka aad rabto inaad qofku tiraahdo shaygaas gacantaada ku qor. I want you waxaan doonayaa to write in aad qorto that down with your hand gacantaada inaad ku qorto ayaan doonayaa. I want you to decorate the room with the flowers. Waxaan doonayaa qolka in aad ku qurxiso ubaxyaasha. I want you waxaan doonayaa to decorate in aad sharaxdo ama aad qurxiso the room qolka with the flowers ubaxyada inaad ku qurxiso. sidoo kale cuntadana waa loo isticmaali karaa. I like to have tea with my breakfast. Marka aad leedahay quraacda waxaan jeclahay inaan shaah ku cabo ama aan marka aan quraacanayo shaahana waan jeclahay. Marka I like waxaan jeclahay to have inaan haysto tea shaah with my breakfast quraacdayda la jirankeeda. I like to have tea with my breakfast. sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa isticmaalka oo dadka marka uu xiriirka ka dhexeeyo ama ay wada joogaan ama ay isla socdaan waa loo isticmaali karaa laakiin taas inta badan rasmi ma aha ama formal language waa af suuq oo kale laakiin inta badan waa la isticmaalaa. tusaale ahaan how long have you been with her? muddo intee la eg ayaad iyada la socotay ama muddo intee la eg ayaad wada joogteen. How long have you been with her? inta aynu ku kulmi doono cashirkan mid lamid ah waxaan idinkaga tegayaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.